soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 3 bisha 10aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah walaalo isla dhashay hooyo iyo gabadheeda iyo dhacdooyinka kale ee murugada leh ee ka soo baxaya qasaaraha qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho qaraxyadan shalay ka dhacay Soobe oo si lamid ah qaraxii 5 sano ka hor qasaaraha iyo waxyeelada uu geystay dib laga ogaanayo dad badan oo weli la yahay meydadka ilaa iyo hadda la helay waa imisa qasaaraha guud ee qaraxyada intii ay gaarayaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan qaraxyadii labada ahaa ee shalay ka dhacay Muqdisho kuwaasoo dad badan ay ku nafwaayeen warkeena ayaad ku daawan doontaan dadaalo lagu heshiisiinayo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo ka socda Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya oo bilowday inay hoos u dhigto awoodaha la taliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Jubbaland Madoobe oo sheegay in al-shabaab ay lacag u soo diri jireen xooga dheeraad ah oo laga helayo khilaaf durba soo kala dhaxgalay Saciid Deni iyo wasiir Juxa iyo muxuu yahay gantaalka Turkiga uu sameystay ee xogtiisa la fashiliyay intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada dadku ma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan waad maasantahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna waxaanu siyaan baqaadeena qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan qaraxyadii shalay ka dhacayna waaxiga Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa dad badan soo xasuusiyay kii 2017 ka dhacay isla goobtaasi waxaana ka dhashay qaraxyadaasi waxyeelo badan oo dhanka dadka rayidka ah soo gaaray weerarkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa dhacay xilli madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka iyo mas'uuliyiin kale ee ka shirayeen la dagaalanka xagjirnimada gaar ahaan kooxda xiriirka la leh al-Qaa'ida ee al-Shabaab marka loo eego baaxadda qaraxa ka dhacay agagaarka isgooska Soobe iyo qasaaraha uu sababay kuwa koobneen bartilmaameedkiisii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo kaliya waxaa laga garan karaa burbur ka gaaray goobaha ganacsiga iyo dhismayaasha ka agdhow wasaaradda oo aad u baaxad weynaa ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaasi al-shabaab ayaana inta badan ka gaabsata sheegashada weerarada ay ku dhintaan dad badan oo rayid ah sida qaraxii Soobe ee 2017 adeega gurmadka degdega ee ambalaasta Aamin ayaana u sheegeen warbaahinta inay aruuriyeen ugu yaraan 35 dhaawac kamid ah gaadiidka gurmadka degdega ah ee ka jawaabay weerarka ka dhacay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho balse qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxyadaasi ayaa warar kala duwan ilaa iyo haatan laga helaya tirada waxaan u jiray 100 mitir markii qaraxa labaad uu dhacay ayuu yiri goobjooga Cabdirasaaq Xasan ma tiri karin meedadka dhulka yaalay tirada dhimashada awgeeda ayuu yiri shakhsigaasi wuxuu sheegay in qaraxa koowaad uu ka dhacay darbiga wasaaradda waxbarashada halkaas oo ay ku sugnaayeen ganacsato qaad iibisa iyo waliba sariflayaal booliska Soomaaliya ayaa baraha bulshada ku baafiyay ilmo yar oo hooyadiisa ay tiilay goobta ay qaraxu ka dhaceen iyadoo meeda waxayna boolisku dalbanayeen in cidii taqaan qoyska ilmahaas yar la soo xiriiraan waxayna ahayd arin uur ku taalo badan anigoo xamaali ah oo gaari gacan bakaaro uga shaqeysanayo ayaa la ii soo sheegay in gabadheeda ay dhimatay xaaskayga iyo gabadhii yareed oo iyagana dhaawac markaan isbitaalka imaaday $30 oo lacag dhiig ah bixi ayaa lay dhahay mana haysanin lacagtaasi waxa iga bixiyay lacagtaas qof agteeda joogay ayuu yiri aaba ku sugnaa mid kamid ah isbitaalada la geeyay dadka dhaawaca sidoo kale Shaafici Maxamed Xuseen iyo Cabdi Maxamed Xuseen oo ahaayeen laba wiil oo walaalo ah ayaa kamid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay Soobe gabar magaceeda lagu soo koobay Iqra iyo hooyadeeda ayaa sidoo kale la soo warinayaa inay kamid ahaayeen dadkii lagu waayay qaraxaas Iqra hooyadeed ayaa la sheegay in ay qaraxii koowaad ku dhimatay balse nasiib daro gabadha Iqra oo hooyadeeda ka soo raadisay goobta ayaa iyaduna waxa ay ku dhimatay qaraxii labaad sidoo kale caruur yar oo qoyskooda nolol maalmeed uga soo raadin jireen caseeye ama in ay kabaha baalashaan ayaa kamid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxyadaasi
isgooska Soobe ayaa sanadkii 2017 waxaa ka dhacay qarax weyn oo al-shabaab ay ku dileen ku dhawaad 1,000 ruux booliska ayaana sheegeen in weerarkan cusub uu ka dhacay goobta saxda ah ee uu ka dhacay sanadkii 2017 dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan qaaday weerar cusub oo ka dhana kooxdani Mareykankuna ku tilmaamay mid kamid ah ururada ugu dilalka badan al-Qaacida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ku baaqay dagaal guud oo ka dhana kooxaha xagjirka ah ee ka taliya qaybo badan oo kamid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaana duqeymo badan oo Mareykanku iyo waliba dalal kale ay geysteen sanadihii ugu dambeeyay la beegsaday xubno sarsare oo ka tirsan argagixisada al-shabaab duulaan aad u culus ayaa kooxdani ka wajahaya qaybo kamid ah gobolada dalka taa oo la sheegay in xanuunkeeda uu ku keenay in weeraro maati lagu laayo ay ka geystaan magaalada Muqdisho kooxdan argagixisada ayaana laga digayaa qataraheeda ku aadan inay leeso shacabka waxaana madaxda ugu sareysa dalka ay ku baaqayaan in kooxdan la macaamilkeeda la joojiyo waxaana baaqa ugu badan loo jeedinayaa ganacsatada cabsida lacagaha ku siiya kooxdaas kadibna ay ku soo maleegayaan lacagahaasi qaraxyo ay ku leenayaan maatida Soomaaliyeed geesta kalena Muqdisho waxaa ka soconaya dadaalo lagu heshiisiinayo Dani iyo Axmed Madoobe kulamo lagu heshiisiinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka soconaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa u sheegeen dabagalka wararka in madaxweyne Dani iyo dhigiisa Jubbaland oo khilaaf xooggan uu soo kala dhaxgalay tan iyo doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya hadda la wado dadaalo la iskugu soo dhaweynayo Saciid Dani ayaa ku eedeeyay Axmed Madoobe xukuumaya sanadaha badan Kismaayo inuu qiyaamay kadib markii uu si weyn u aaminay intii ay socotay doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo uu kamid ahaa musharaxiintii u tartamaysay xilkaasi xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland ayuu sheegay Dani inuusan wax cod ka helin halka uu Axmed Madoobe uu hore uga ballan qaaday in dadka uu soo saaray ee codka isaga siin doonaan lama oga in dadaaladan la iskugu soo dhaweynayo Madoobe iyo Dani oo mar ahaa saaxiibada iskugu dhow ee siyaasadda Soomaaliya ay guuleysan doonaan balse arintan ayaa imaanaysa xilli lagu guuleystay in la heshiisiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani danka kalena madaxtooyada Soomaaliya waxa ay bilowday in ay hoos u dhigto awoodaha la taliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wadaa sida xogu uu ku helayo dabagalka wararka qorshe uu ku doonayo in lagu yareeyo awoodaha la taliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyagoo salugsan in Xamse uu la taliyaal ka dhigto dad khuburo ah oo hore ula soo shaqeeyay dowladihii hore kuwaas oo cilaaqaad toos aan la lahayn fila Soomaaliya sida xogu ay sheegayaan kooxda madaxtooyada ayaa doonaysa inay iyaguna hoos tagaan la taliyaasha ra'iisul wasaaraha si aanan saameyn dhow ugu yeelan tallaabooyinka siyaasadda ra'iisul wasaaraha maadaama ay haystaan cilaaqaad gudaha iyo dibadda durbaba qorshaha hoos u dhigista awoodaha wuxuu ku bilowday la taliyaha dhinaca amniga Kamaal Guutaale oo la sheegay inuu hoos tagayo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waa Xuseen Macaline lama oga in madaxweynuhu wax ka og yahay hindisaha qorshahan laakiin waxa la rumaysan yahay in hoos u dhigista bilowgii hore galaangalkiisa bilaabay wasiiru dowlaha madaxtooyada Abshir Buqaari la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macalin iyo la taliyaha sare ee Aweys Xaaji oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ujeedada ugu weyn ee loo hoos keenayo la taliyaashan ayaa ah maadaama ay dowladihii hore la soo shaqeeyeen waxaana laga cabsi qabaa inay talooyinkoodu leexiyaan siyaasadda ra'iisul wasaaraha mustaqbalka dhowna ay saameyso wada shaqeynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo inay raggan madax banaanaadaan si gaar ah waxaa sas weyn looga qabaa la taliyaha arrimaha siyaasadda ee ra'iisul wasaaraha Axmed Nuur Uleex oo hore uga tirsanaa kooxdii ololaha Xasan Cali Kheyre sidoo kalena soo noqday xogayihii joogtada ee xafiiska Kheyre iyadoo kooxda madaxweynaha ay ninkan u arkaan inuu yahay shakhsi galaangal badan leh oo ra'iisul wasaaraha go'aanadiisa wax ka goon kara halka iyaguna rabeen inay awooddaasi qaataan inkastoo madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse ay hore iskala soo shaqeeyeen arrimaha waxbarashada iyo waliba xisbiga UPD haddana lama oga in arintan looga gol leeyahay in lagu kontrolo ra'iisul wasaare Xamse iyagoo uga duwan madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaareyaashii hore ee isla jaan qaadeen iyagoo aan si aqoon ama hore iskula soo shaqeynin waxaana la tuunsan yahay in arintani ay tahay soo ifbixidda loolan labadan xafiis ee mustaqbalka dhow ah
halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. madaxweyne Axmed Madoobena waxa uu sheegay in al-shabaab lacago u soo diri jireen markii uu ku xirnaa Itoobiya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka sheekeeyay waayihiisii argagixisada al-shabaab iyo dhaawacii ka soo gaaray. Axmed Madoobe oo ka hadlayay kulan ka dhacay Muqdisho oo looga hadlay la dagaalanka argagixisada ayaa xusay in al-shabaab aysan ku dagaalamaynin wax diin ah ayna yihiin dad caadeystay daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed. waxa uu xusay in intii uu ka tirsanaa uu soo gaaray dhaawac xoogan laguna qabtay dagaal isagoo muddo 2 sano iyo bar ah u xirnaa Itoobiya iyo Mareykanka. intii uu xirnaa ayuu sheegay in al-shabaab lacaga siin jireen qoyskiisa. markii uu ka soo baxay xabsiga ayuu sheegay in al-shabaab u soo dhiibeen lacag gaaraysa $10,000 ayna u soo bandhigeen in loo doorto hogaamiyaha kooxda balse uu iska diiday. Axmed Madoobe oo hadda sanado badan maamulaya Kismaayo ayaa soo noqday ku-xigeenka amiirka kooxda argagixisada al-shabaab waxa uu door weyn ku lahaa dhismaha kooxdan oo gumaad joogto ah ku haysa shacabkeena Soomaaliyeed. dhanka kalena xogo dheeraada waxa laga helayaa khilaaf durbaba soo kala dhaxgalay Dani iyo Wasiir Juxa sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo muhiim ah. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa oo uu dhawaan magacaabay ayaa durbaba ku kala aragti duwanaaday mashruuca dimuqraadiyadda. madaxweyne Dani ayaa ku amray Juxa inuu joojiyo hadallada uu jeedinayo ee ku wajahan kafaaloodka arrimaha iyo kulamada sidaas oo kalena uu ka gaabsado ka hadalka mustaqbalka dhow ee 2024 iyo jihadeeda taas oo filan waa ku noqotay shuraakadii dhawaangalka noqotay. sida ila wareedyo cadeynayaan Dani ayaa ka carooday hadalkii Wasiir Juxa ee ah in aan muddo kororsi la aqbali karin kaas oo uu ka jeediyay magaalada Gaalkacyo. Saciid Dani ayaa dhawaan u sheegay xubnaha kala shaqeynaya mashruuciisa inuu baarlamaanka ka hor cadeyn doono inuusan kororsi u soconin balse wuxuu kaga baxay balankaasi. arrintan ayaa kaliftay in xubnahaasi ay ku baraarugaan damaca kororsiga Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani waxaana la aaminsan yahay inaysan muddo kordhin ka hirgeli karin deegaanada maamulka Puntland. lama oga sida ay iskula sii jaan qaadi karaan Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnihiisa cusub maadaama uu xukuumaddiisa hore uga saaray xubnihii kooxda Aaranjaan oo la ogyahay in Saciid Dani ay ka shaqeeyeen soo saaridiisa balse wixii ka dambeeyay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya markii looga adkaaday ayaa khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay Dani iyo saaxiibadiisii Aaranjaan. وهاجاجي داود يالي من كانوا وحنو إيجنا محوية جنتال كتركي وسمست حكتي سلا فشلية دولة تركي جاية تجابس جنتال برتميه بشان أكتوبر وأنا مركي أوريس وسمسته هب أو داسلة صوصاري د جنتال كان أوصنا ضبطا سعودي أي سيقر سعودي اللو فريه جنتال كان أي جاري مسافة دن 561 كيلومتر مدة 400 كونتن البرغسيا مركي أوريس إلى تجابي إسقول لبجي باري حديقة جنتالها ugu casrisan Turkiga. gantaalkan oo lagu magacaabo Tayfun ayaa laga soo tuuray Riza 456 ilbiriqsi gudahooda ayuuna ku gaaray xeebta Zinob isagoo dul maray badda madow waana gantaalkii ugu horeeyay ee ridada gaaban ee balastikada ah ee uu Turkigu yeesho. tijaabada gantaalkan hore looma shaacin hase yeeshee muuqaal laga soo dusiyay ayaa 18 bishan Oktoobar lagu faafiyay wakaaladaha wararka. talaabadan oo ku soo beegmatay xilli ay xiisad ka taagneed badda madow ayaa markaasi kadib lagu soo qoray wargeysyo iyo telefishiino caan ku ah in ay dhanka dowladda u janjeeraan. warkan waxa walaac ka muujiyay Giriiga iyadoo uu doonayo in kor loo qaado awoodiisa difaaca ciidan ee qalabka difaaca diyaaradaha dagaalka ee laga soo iibsado Mareykanka iyo Faransiiska. inkastoo ay dowladdu muddo aamusneed hadda markii uu soo shacbaxay mashruucan qarsoodida ah ee gantaalada balastikada madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan wuxuu markii ugu horeysay meel fagaara uga dhawaaqay gantaalkan Tayfun inkastoo uu aan faahfaahin dheeraada ka bixin xilliga uu arintan ku dhawaaqay. Erdogan wuxuu ka qayb galayay barnaamij ka dhacay Istanbul 22 Oktoobar. haddaba muxuu Tayfun uga dhigan yahay difaaca iyo awoodda militariga ee Turkiga? duuliye sare ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in ka hortagan lagu kordhin doono gantaalkan cusub ee balastikada ah ee loo diyaariyay difaaca dalka. waxaan hormarinaynaa gantaalkan ma ahan inuu halis ku yahay dariskeena laakiin ujeedadu waa si aan u kordhino ka hortaga dhammaan wadamada bartilmaameysanaya dalkeena. hubka noocaana ee lagu soo saarayo warshadaha difaaca ayaa waxa wax weyn ay ka tari doonaan difaaca dalka ayuu yiri.
haddaba maxaa laga ogyahay waxa uu ka samaysan yahay gantaalkan? Turkiga ayaa sanado badan ka shaqeynayay gantaalada ridada gaagaaban iyo kuwa dhexe labadaba iyo qalabka difaaca hawada ee dhanka kale. Waxaa la ogyahay in Ankara ku dartay agabkeeda ciidanka gantaalo ay dibadda ka soo iibsatay oo la jaan qaadi kara kuwa badan oo dunida loo adeegsado. Gantaalka Typhoon oo ay ka shaqeynaysay Roketsan oo ah hay'ad dowladeed oo la aasaasay 1988 si ay u daboosho baahida gantaalada iyo agabka kale ee ciidamada Turkiga ayaa wax weyn ka bedeleen gantaalada kale ee soo saarto Roketsan oo leh masaafo ka badan 500 kilomitir. gantaalada balastikada oo ay soo saartay hay-adan waa gantaalo masaafo dheer safri kara. Si kale haddii loo dhigo waa gantaalo loo isticmaali karo goobaha dagaalka iyo in lagu rido bartilmaameedyada istiraatiijiga ah ee ridada hoose. Kan ugu horumarsan gantaalada Turkiga oo lagu magacaabo Bora waxaa laga riday gaariga weyn oo ay awoodiisu tahay 8 lagu dhuftay 8 iyo gaariga kale ee loo yaqaano Roketsan multi-barrel waxa ayna gaaraan masaafo dhan 280 kilomitir. Bora oo leh madaxa dhan 470 kilogram ayaa 50 mitir oo kaliya ka qaldami kara bartilmaameedka loo wado. xogtan oo ku saabsan Typhoon iyo goorta lagu dari karo liiska hubka Turkiga ayaa lala wadaagin dadweynaha. Hay'adda Roketsan ayaana shacabka la wadaagta macluumaadka ku saabsan mashaariicda looga shaqeynayo howlahan, hase yeeshee kuma jiraan wax macluumaad oo ku saabsan Typhoon. qaar ka mid ah wargeysyada ku dhadhow xukuumadda Ankara iyo warbaahinta maxalliga ayaana soo saarista gantaalkan u adeegsaday fasiraad kale oo ay ku sheegeen in tani ay tahay tallaabo lagu sii xoojinayo wacda difaaca. Macluumaadka ku saabsan gantaalkan cusub weli si rasmi ah looma shaacin. Saameyntiisa waxay ahayd mid loo fuliyay si qarsoodiya. sidaasi awgeed natiijada la xiriirta saameynta uu yeelanayo gantaalka Typhoon waxa ay u soo bixi doontaa si tartiib waxayna qayb ka ahaan doontaa macluumaadka soo kordha ee ku saabsan laata gaashaandhigga ee dalka Turkiga. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warki oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan daawada qayb ka noqo saaxiibada ku xiran janalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka u sii share gareeya asxaabtiina laagtiina dhiirigelin ayay noo tahay waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.